السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي أنا وحنا كينج سولفر واحد إجدا ونسا كينج سولفر ميديا وقرين أنت أنا مقالك أوجد قالين لو ذاك أصحابتي هذا والشرقري لايك تي كومنت جن كينج سولفرها وأمهم ولا غلقة ولا سيد أكنتي بعد هو إسكسوا بدي حتى هدي وعدكي أما هذا الكيجو أي كل بيان والويل سومالي هذا كقاعدة بالي هذا كقاعدة وأي هاي وقال aad qurux badan aan rabaa halkan reaction kaga bixiyo ee uu soo duubay Mursal Muuse ma ahan nin da'yar markaan dugsiilaha ahaa baan maqli jiray heesihiisa waxaan ku xasuustaa heesta la yiraahdo ay raadsan waaya Mursal Muuse waa fanaan jacayl oo kala dhaxeeyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere ciyaartooygaas oo markii hore ka soo kicitamay garoonka loo yaqaano ee Qadar Saliimo balse iminka garoon cusub buu fadhiyaa garoon cusub markaan ku leeyahay oori cusub ayuu la hasaawaya hadaba ninkaas isaga ah hees cusub ayuu soo qaaday heesta uu soo qaadayna waxay hadaba taawanaysaa meelo dhowr ah hadaba inta aan u gudgelin marka hore heesta daqiiqad kamid ah ee la soo daawo عشقي يقول لحاتدي صولي عيقي نفجع عيل كل ريا لقويا قاسيدا عشقي يقول لحاتدي صولي عيقي نفجع عيل كل ريا لقويا قاسيدا لضنتيدا آيها أنا لابتك ما جرين عشقا لضبطو لدي وايجيكي لضنتيدا آيها waxaan filayaa inaad ila soo daawatay hadaba heestaas aniga ka King Solfar ahaan sida aan u dhadhamiyay baan rabaa inaan idin la wadaago heesta erayadeeda waxa kamid ah عشقي يقول لحد سذيبا مايا عشقي يقول لحد سذي صلي عيقا معناها هذا بقوله جيدا وحلي هاي عشقي هذا أنيقا بان دريمي عشقي بان هذا دريمي هوري أموسن دريمي معناها markii hore uu labalabeynayo Qadar Saliima ma hodan kalo matakolo meelaha ku jirtay hadda macnaha labalaba waa dhaaf buu yiri waa inta I am straight toos hadda waxa waaye Hodan Cabdiraxmaan baa ku aadanaa buu leeyahay wuxuu si raaciyay soo liicay eega hadda xagaaga waan u soo janjeeraa oo u soo dhacay oo u soo jilcaaday oo u soo socdaa taas waxa kale ka dhigan tahay in markiisii hore uu ahaa qof boqolkiiba boqol jaceelkeeda aanan lahaynin xaqiisa uu ka liitay wuxuu si raaciyay naf jaceelka luray lagu yaqaan sidaada intaas dambana waxa uu ku karbaashayaa gabadha imanka uu leeyahay jaceelka hadda ayaan ku dareemayaa wali Hodan Cabdiraxmaan waaye tan hore isaga ayaa dareensiinay inuu hadda jaceelkeedaba uu dareemay qoramada dambena wuxuu iyada dareensiinayaa in jaceelka iyadu ay kaga horeysay laakiin hadda isla qaban doonaan wuxuu leeyahay marka gabadhii عشقي igu laxaadsaday soo liicay eege naf jaceelka luray lagu yaqaan sidaada hadda heesa badan baa soo qaaday dadka ay dareensiisanay aad u jeceshahay hadda waxa sidaas ku luraya uu yiri waa laf jecel waa lagu yaqaan wax hadda kaliya maahan hadaba heestaas waxaan leenahay waxay ahayd hees marna karbaash ah marna jacayl la soo gudbinayo annagu intaas baan ka dhiminay waxyaabo kale oo ka dhimiyay waxa kamid ah meel kaamirada la dareemayo leerka sida uu shidan yahay iyo waa jira reaction badan oo dhanka kaamirada balse anagu kaliya waxaan rabay inaan qiimeeyo kana hadlo inta yarta ah suuqa ku jirta ee jaceelka maanta ee uu dareemayo gabadhani erayadaas baan rabay inaan idin la wadaago reaction kayga sidoo kula ah ee qaabka u fiiriyay
haddii wax ay qaldan yihiin isoo sax haddii aad is leedahay war ninku waa nin weyn meel badan buu taabtay caadi maaha meel aan arkaynin meel aan ii muuqanin buu taabtada haddii aad is leedahayna waxaan ku leeyahay thank you like isoo dheh comment igu soo hambaliyay asxaabtaada la wadaag anigu mar walba waxaan ahay King Solver waxaad iga daawanaysaa King Solver Media salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh